السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنت اللي متلي أنا حريص امتحان إلى عافية مراد خير الأسيامين وردك دقنا سوغارا يا شيء إن إسرائيل وردك دقنا سوغارا يا شيء إيران إسرائيل يمرين ويرر عصب فلي إلى هذا كعنك هو جابي إسرائيل مريكن ويرر فلي إيران إذا ماذا كعنك oo jawaabay ilaa maalintii 11aad oo saxiix u dambeeyay la saxiixayo heshiis is-afgarad ah oo u dhexeeya Washington iyo Tehran 120 maalmood tani markii uu dagaalka bilowmay waxaa dhacay horumar cusub. wasaaradda arrimaha gudaha ee Bahrain ayaa ku dhawaaqday in la dhisay digniin iyagoo ugu baaqay muwaadiniinta iyo dadka dalka inay isdejiyaan una gudbiyaan goobta ugu dhow ee amniga leh isla markaana ay wararka kale socdaan. warbaahinta rasmiga isbahaysiga Faris iyo Talyaaniga ayaa lagu taageeray Lubnaan maxaa ka jira. Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay in isbahaysi caalami ah oo bedela ciidamada qaramada midoobay ee ku meel gaarka ah UNIFIL markay dhamaato howlgallada koonfurta Lubnaan. Talaabadan howlgalladooda koonfurta Lubnaan waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun. qorshaha cusub ayaa dhalinaya su'aalo ku saabsan qaab uu shaqayn doono saldhigiisa sharciyeed iyo doorka uu ka ciyaari karo koonfurta waqooyiga Litani. qadka buluuga ee xadka waxay leeyihiin ciidamadan oo ku meel gaarka ah. Faransiiska iyo Talyaaniga waxaa loo bedeli doonaa ciidamo caalami ah. khabiir istiraatiiji ah Xasan Jooni ayaa sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay aaminsan yihiin ciidamada UNIFIL aysan guuleysan hirgelinta qararka 1701 gaar ahaan ka hirgelaya dib u dhiska 1101 gaar ahaan ka hortagidda dhis kaabayaasha ururka buluuga ah. dhanka kale dowladda Lubnaan waxay ku doodeysaa in Israa'iil ay kumanaan jeer jebisay heshiiska tani markii la dhaqangeliyay. Jooni wuxuu sheegay in hadda la soo jeediyo isbahaysi ay hogaamiyaan ama qayb ka yihiin Faransiiska iyo Talyaaniga balse weli aysan caddeyn saldhig sharci ee ciidamadaas cusub. waxuu carabka ku adkeeyay in ciidamo kasta oo bedeli UNIFIL u baahan yihiin ogolaanshaha wadamada kale ah. sharciyad heshiis iyo wada gaaraan Lubnaan iyo Israa'iil iyo qaramada midoobay arrimahaas oo weli aan la isla meel dhigin. falanqayn dhaqaale sicir bararka oo si weyn u kordhay dagaalka awgiis. xarunta tirakoobka Iiraan ayaa Sabtidii sheegtay in heerka sicir bararka dalka uu si aad ah u kordhay bishii Juun isagoo gaaray 88.6 marka loo eego isla muddadii sanadkii hore. taasi oo sabab u tahay saameynta dagaalka Iiraan muddada dheer ayna la daalaa dhacaysa
sicir barar sare oo ka dhashay cunaqabateynta caalamiga ah. Xarunta waxay sheegtay in qiimaha cuntada uu ka badan yahay laba maalmood intii u dhaxaysay 22 May ilaa 21 Juun. waa hal bil marka loo barbardhigo isla muddadaasi sanadkii 2025. qiimaha rootiga iyo badarka ayaa kordhay 138.8%, halka hilibka cas iyo digaaga sidoo kale si weyn u qaaliyoobeen. sicir bararka ayaa aad u kordhay waa hal bil gudahooda, laga soo bilaabo 22 May ilaa Juun 21. maxaa dhici kara hadduu magaranaysa uu dagaalka uu si dhowr bil sii qaato? marka keli Iiraan Israa'iil kuma saabsan wadamada carabta khaliijka isku dhaho iyo wadamada adduunka dhan, meel walba qof kastoo joogo uu saameynaya, wax walba uu dhaweri noqonaya, xaaladuna is bedelaysaa. kule waa arkayna wixii kasoo kordho aan ciidamadan magaranaysaa oo xadka jooga oo dhexeeya Lubnaan iyo Israa'iil oo nabad ilaalinta. Israa'iil waxay rabtaa ka samaysan kartaa uma jaxan meesha iska joogaan waxay qabanayaan garanayaan. marka ciidamada waxay leeyihiin Faransiiska iyo Talyaani waxay leeyihiin ciidamada caalami aan ka dhigno ciidamada aan sharci u sameyno. marka khabiir John ayaa sheegay in war cad aan weli laga soo saarin, isla markaana ay weli barnaamijku u socdo, laakiin uma malaynaya inay suurtagal noqoto. because waxa dhibka dhan waxa wada Israa'iil waaye. Israa'iil ma rabto beerta Lubnaan inay qabsato, inay sii ballaariso dagaalkan weligiisa ka socdo. marka wixii kasoo kordho qodobka degdeg waa inuu warkeena dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.